عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال كسو دوادا رجال الجنة waxaan idiin soo gudbinayaa qiso aad u cajiib ah una baahan in lagu cibro qaato intaan u gudagelin fadlan subscribe saar channelkan Rijaalul Janna si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo gambaleelkana taabo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya waa qiso aad la yaabayso markaad maqasho waa wiil lagu magacaabo Maxamed oo ah arday dhigta dugsiga sare wuxuu ahaa arday dadaal badan oo aad ugu dadaala duruustiisa waligii wuxuu jeclaa in uu mar galo kulliyadda caafimaadka taas oo uu mar walba ku riyoon jiray intuu yaraa wuxuu jeclaa inuu noqdo dhakhtar dadka daaweeya qoyskiisana waxay ku dhiirigelin jireen inuu duruustiisa ku dadaalo wax walba ay awoodeen ayay ku kaalmeyn jireen sirriyada wiilkooda u rumowdo waxaa la qaaday imtixaankii dugsiga sare waxaa soo dhawaaday natiijooyinkii imtixaanka ilaahay waxa uu ka baryay inuu helo natiijooyinka ugu sareeya imtixaanka si ay ugu suurta gasho inuu galo kulliyadda caafimaadka qoyskiisa aad ayay u farxeen maadaama wiilkoodii Maxamed natiijooyin sare ka keenay imtixaankii aabihii ayaa ku yiri wiilkiisii maxaa doonaysaa dalbo waan ku siinayaa maanta Maxamed oo aad u fakiray ayaa ku yiri waxaan doonayaa inaad ii gado baabuur aan jaamacad ku aado aabihii ayaa ku yiri aabe waxaan ku siinayaa hadiyad baabuur ka fiican galabtii ayuu aabihii guriga imaaday isagoo gacanta ku sida baakad yar wuxuuna ku yiri wiilkiisii waatan hadiyada aan ku diyaariyay Maxamed ayaa aad u farxay una maleeyay in furaha baabuurka uu baakada ku dhex jira markuu furay baakadii ayuu ku dhex arkay kitaab quraan ah markaas ayuu aad u xanaaqay isagoo qeylinayo aabihii ku yiri aabe anigoo intaas oo sano wax soo baranayay miyaad musxaf isiinaysaa kadib aabihii ayuu kitaabkii ku tuuray wuuna baxay isagoo aad u careysan aabihii wuxuu isku dayay in uu wiilkiisii qabto inta uuna bixin laakiin shaydaan ayaa ka xoog badiyay gacanta aabihii ayuu iska fujiyay gurigana wuu isaga baxay mar dambana kuma soo laaban dhowr bilood kadib wuxuu dareemay inuu dembi ka galay aabihii wuxuuna go'aansaday inuu guriga ku soo laabto oo uu cafis ka dalbado aabihii iyo hooyadii laakiin nasiib xumo markii gurigoodii imaaday wuxuu la kulmay arin lama filaan ah waxaa loo sheegay in uu aabihii geeriyooday bil ka hor aad ayuu uga murugooday geerida aabihii oo aanu ogaanin wuxuu bilaabay inuu ooyo markuu uu galay qolkii aabihii wuxuuna ku arkay kitaabkii musxafka ahaa ee aabihii u keenay wuxuu damcay inuu kitaabka xoogaa aqriyo markuu kala furay kitaabkii wuxuu kala kulmay arin la yaab leh waxaa kitaabkii dhexdiisa ku arkay furo baabuur oo ah baabuurkii aabihii ka dalbaday naxadintii uu naxay waxaa ku dhacay salal wuxuuna awoodi waayay inuu hadlo waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan mahadsanidin